ururka kulmiye wadamada ku yaala qaaradda Afrika, Caribbean-ka iyo Pacific-ga ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano ACP waxa la aasaasay sanadkii 1975 xaruntiisuna waxa weeye magaalada Brussels ee wadanka Belgium. ururkan imika waxa xubna ka 79 wadan oo ku kala yaala saddexdaasi gobol. waxaana ururkaasi uu ka shaqeeyaa sidii loo horumarin lahaa wadamadaasi isla markaasna isfahan looga dhexdhalin lahaa dadyowga ku dhaqan wadamadaasi. ururkaasi waxyaabaha kale ugu waaweyn ee uu qabto waxaa ka mid ah sidii ururka midowga Yurub oo isaguna kulmiye 28 wadan oo xubna ka ururkaasi ay uga wada shaqeyn laayeen dhinacyada siyaasadda iyo horumarinta ganacsiga iyo baayac mushtariga. haddaba Soomaaliya oo sanado fara badan imika ka maqnayd fagaarayaasha caalamiga ah ayaa si siyaadaysa dib ugu soo noqonaysa ururada kulmiya wadamada ku yaala adduunyada qaarkood. tusaale ahaan ururkan ACP ayaa Soomaaliya imika waxa wakiil ay uga tahay 6 wadan ee ku yaala Afrika dhinaceeda bari. waxaana shirka maanta ka dhacay xarunta ACP ee magaalada Brussels 6daasi wadan ku matalayay danjiraha Soomaaliya علي سعيد فقي waxaana uu iga waramayaa waxa ay kaga hadleen shirkoodii maanta. sidaad hore u sheegtay Soomaaliya sanadkii 2013 ayay ku soo biirtay ururkan maaragtay ACP-da iyadoo markii hore ku jirta asaasiyaashii ugu horeeyay laakiinse ka baxday. hadda Soomaaliya waxay ku jirtaa xafiiska la yiraahdo birooga oo aan member ka nahay waxa waaye waa 6 region 4 oo Africa region 4 region oo Africa oo maaragtay koonfurta Africa waqooyiga Central Africa West Africa iyo East Africa oo Soomaaliya mathalayso sanadkan 6 bilood laga bilaabo February ilaa iyo July annaga ayaa markii xafiiska birooga ku jirnaa. marka waxaan u nahay coordinator East Africa wadamada East Africa ilaa 12 dawladood ah. shirarkan waxaan soo diyaarinaa ajendaha maaragtay looga hadli doono shirka galabta ka dhici doono safaaradaha isugu imaan doono maaragtay meeshan ACP-da kuwaasoo ajendooyinka maaragtay ka mid ah oo runtii hadda muhiimka weyn haysta ay tahay sidii maaragtay heshiiska oo Cotonou oo dhammaan doona sanadka 2020-ga in maaragtay heshiis cusub oo maaragtay wada shaqeyn ah. ugu dambeyntii haddaad soo koobto ururada sanoo kala tusaale ahaan Soomaaliya oo kale maxadanay ugu jiri karaa? ururkan faa'iido weyn buu ugu jiraa Soomaaliya. markii ugu horreysay waxa waaye wadamo Afrika iyo maarkino Caribbean Pacific isugu yimid marka identity Afrikaanka maaragtay meesha horta ku qeexayso. tan labaad waxa waaye ururkan waa qaybta kaliya sida kaliya oo ACP ahaan iyo EU wada shaqeeyaan. marka lacagaha Soomaaliya la siiyo waxa waaye waxay ka yimaadaan heshiiskaas oo maaragtay oo Cotonou laga soo saxiixay 2000 dawlad kasto maarkino Afrikaan oo kamid ah ama Caribbean ama kamid ah maaragtay ama Pacific oo kamid ah ururkan shuruudahaas iyo maamuladaas ay lagu soo saxiixay ACP-da ayaa lagu maamulaa. waxa kale oo jira mataqaana anaga kaliya waxaan kale oo qabnaa xiriirka Europe aan la leenahay parliamentarian qabnaa joint parliamentary oo ACP-da iyo ay isugu wada yimaadaan 3 biloodba hal mar oo annaga 2 xildhibaan oo Soomaaliya wakiil nooga ah maaragtay. kaasi wuxuu ahaa danjiraha Soomaaliya u jooga magaalada Brussels ee xarunta wadanka Belgium Ambassador Ali Said Faqi. waa Cabdisalaan Hereri, Universal TV, Brussels, Belgium.